bismillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada platformka sheer xirfad iyo koorso cusub. koorsadan waxa ay la xiriirtaa koorsadii financial accounting qaybtii hore. qaybtan waa qaybtii labaad ee aan idiin ballan qaadnay in aan idiin soo gudbino. waxa ay ka koobnaan doontaa 7 chapter. chapterka ugu horeeya waxaan uga hadli doonaa qaabka loo xisaabiyo shirkadaha deymaha wax ku bixiyo ee deyntu ka maqan tahay, accounting for receivable. kadib waxa aan baran doonaa qaabka loo xisaabiyo shirkada haddii ay hanti soo gadato. hantidaasi ha ahaato hanti la taaban karo sida guryaha oo kale, sida baabuurta oo kale, ama hanti aan la taaban karin, laysin ay qaadatay oo kale. kadib waxaan qaadan doonaa noocyada liability-ga iyo qaabka loo xisaabiyo shirkadaha. noocyo ayaan usoo kala qaadnay. nooca corporationka oo ah nooc aad complicated u ah ayaan isagana ku qaadan doonaa qaybtan labaad, qaabka loo xisaabiyo shirkadaha. corporationka waxay caan ku yihiin in ay investment sameeyaan. investmentiga ayaan qaadan doonaa insha allahu tacaala. chapterka 13 waxaan ku qaadan doonaa statement ardayda ee aad ii weydiiyeen inta aan cashirada wadnay oo la dhaho statement of cash flows, oo ka hadlayo shirkadan lacagta xagee ayay kasoo gashay, xagee ayay ku bixisay, meeqa cash ayaa available u ah markuu sanadka dhammaado ee markaa la taagan yahay. waa meesha aad ka heli karto. ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabayn doonaa chapterka 14 financial statement analysis ayaan kusoo gabagabayn doonaa. waxa aan dhammaan ardayda ka codsanayaa in ay la socdaan cashiradan. waa cashiro aan ugu talagalnay kormar ma aha, waa cashiro aan ugu talagalnay qofka ardayga ee raadinayo u baahi qabo cashiro dheeraad ah marka jaamacadaha ku jiro, ha rabo inuu xirfada si independently ah u barto. waa cashiro aan ugu talagalnay si detail ah inaan ardayda ugu soo gudbino, ma aha wax aan kormarayno. markii haddii ardayda qaarkood ay dareemaan in cashiradu yara dhaadheer yihiin, waxa hadafkeenu waxa weeyaan in xirfadan accountingka aqoontii aad u baahneed oo af Soomaali ah oo ku dooban in aad ka hesho sheer xirfad. anigu waa Mustafa Xareed. koorsada aan qaadanaynana waa qaybtii labaad ee maadadii financial accounting part 2. dhammaantiin gacmo furan kusoo dhawaada.